بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada dhulkaan beeca waa boos bannaan waa meesha hadda aad joogno meeshaan ayuu ka bilaabanayaa oo dhagxanta yararka ee taallo eladii ama calaamadii booska waa boos dhameystiran cabirkiisa waa 25 meel aad u fiican oo deegaan ku yaallo guryahan jiingada ayuu diris leeyahay dhinacan oo aragtaan sida u dhisan tahay inta waxaa ka xiga xaafadihii kale ee magaalada masaajidkaas asagana kaama dheero hala soo dhawaado dhinacaana waxaa naga xigo state waxaa joognaa degmada Dar es Salaam xaafadda state-da waa state-ka ugu soo horeeyo argada inta aan gelin ku yaallo state-ka waa kana derbigaas iyo guryahaas meesha waa state-yo oo la miireesha isku wada eg oo halka kalar ah iyo showrida meesha ay ka baxayso hala soo dhawaado dhinacan waa wadadii laamiga markaa joogto argada oo soo dhaaftid meesha oo laamiga beeko waxa u soo leexanaysaa dhanka Daynile meeshaas waa masaajid kale hala soo dhawaado waa meeshaan sidaas u camiran laamigana waxaa ka xiga 3 block oo kali ah wuxuu ku jiraa block afraad booska iibkan waa kana jiingadan iyo ku aadan yahay wada ahaan marka lahane dhinacan ee wadadiisa naqane gurigan filada iyo ee wadada ka soo bilaabataa hala soo dhawaado jihadiisana waa waqooyi ujeed ee koonfur ujeed hal ahaada qiimihiisa aad u jaban yahay waxaa lagu rabaa oo kaliya 16,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waa macal dalaal iyo heshiis waa meelaha hore ka degaysid soo dhawaada waa mahadsantihiin kanaalkan subscribe noo saara wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada dhulkaan beeca waa boos bannaan waa meesha hadda aad joogno meeshaan ayuu ka bilaabanayaa oo dhagxanta yararka ee taallo eladii ama calaamadii booska waa boos dhameystiran cabirkiisa waa 25 meel aad u fiican oo deegaan ku yaallo guryahan jiingada ayuu diris leeyahay dhinacan oo aragtaan sida u dhisan tahay inta waxaa ka xiga xaafadihii kale ee magaalada masaajidkaas asagana kaama dheero hala soo dhawaado dhinacaana waxaa naga xigo state waxaa joognaa degmada Dar es Salaam xaafadda state-da waa state-ka ugu soo horeeyo argada inta aan gelin ku yaallo state-ka waa kana derbigaas iyo guryahaas meesha waa state-yo oo la miireesha isku wada eg oo halka kalar ah iyo showrida meesha ay ka baxayso hala soo dhawaado dhinacan waa wadadii laamiga markaa joogto argada oo soo dhaaftid meesha oo laamiga beeko waxa u soo leexanaysaa dhanka Daynile meeshaas waa masaajid kale hala soo dhawaado waa meeshaan sidaas u camiran laamigana waxaa ka xiga 3 block oo kali ah wuxuu ku jiraa block afraad booska iibkan waa kana jiingadan iyo ku aadan yahay wada ahaan marka lahane dhinacan ee wadadiisa naqane gurigan filada iyo ee wadada ka soo bilaabataa hala soo dhawaado jihadiisana waa waqooyi ujeed ee koonfur ujeed hal ahaada qiimihiisa aad u jaban yahay waxaa lagu rabaa oo kaliya 16,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waa macal dalaal iyo heshiis waa meelaha hore ka degaysid soo dhawaada waa mahadsantihiin kanaalkan subscribe noo saara wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada dhulkaan beeca waa boos bannaan waa meesha hadda aad joogno meeshaan ayuu ka bilaabanayaa oo dhagxanta yararka ee taallo eladii ama calaamadii booska waa boos dhameystiran cabirkiisa waa 25 meel aad u fiican oo deegaan ku yaallo guryahan jiingada ayuu diris leeyahay dhinacan oo aragtaan sida u dhisan tahay inta waxaa ka xiga xaafadihii kale ee magaalada masaajidkaas asagana kaama dheero hala soo dhawaado dhinacaana waxaa naga xigo state waxaa joognaa degmada Dar es Salaam xaafadda state-da waa state-ka ugu soo horeeyo argada inta aan gelin ku yaallo state-ka waa kana derbigaas iyo guryahaas meesha waa state-yo oo la miireesha isku wada eg oo halka kalar ah iyo showrida meesha ay ka baxayso hala soo dhawaado dhinacan waa wadadii laamiga markaa joogto argada oo soo dhaaftid meesha oo laamiga beeko waxa u soo leexanaysaa dhanka Daynile
meeshaas waa masaajid kale hala soo dhawaado. Waa meeshaan sidaas u camiran. laamigana waxaa ka xiga 3 baloog oo keli ah. wuxuu ku jiraa baloog afaraad. booska iibkana waa kana jiingadan iyo ku aadan yahay. wada ahaan marka lahane dhinacan ee wadadiisa naqane gurigan filada iyo ee wadada ka soo bilaabataa. hala soo dhawaado. jihadiisana waa waqooyi ujeed ee koonfur ujeed raali ahaada. qiimihiisana aad u jaban yahay. waxaa lagu rabaa oo keliya 16,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah. waa macal dalaal iyo heshiis. waa meelaha hore ka degaysid. soo dhawaada. waa mahadsantihiin. kanaalkan subscribe noo saara. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate, walaalayaal soo dhawaada. dhulkan beeca waa boos bannaan. waa meesha hadda aad joogno. meeshaan ayuu ka bilaabanayaa oo dhagxanta yararka ee taallo eladii ama calaamadii booska. waa boos dhammaystiran. cabirkiisa waa 25 meel aad u fiican oo deegaan ku yaallo. guryahan jiingada ayuu diris leeyahay. dhinacaana waa aragtaan siday u dhisan tahay. inta waxaa kaa xiga xaafadihii kale ee magaalada masaajidkaas asagana kaama dheero. hala soo dhawaado. dhinacaana waxaa naga xigo state. waxaa joognaa degmada Daar es Salaam. xaafadda stateyada waa stateka ugu soo horeeya oo argada intaan gelin ku yaallo. stateka waa kana derbigaas iyo guryahaas meesha waa stateyo oo lamiireeshaas ku wada eg oo halka kalar ah iyo showrida meesha ay ka baxayso. hala soo dhawaado. dhinacan waa wadadii laamiga. laamiga markaa joogto argada oo soo dhaaftid meesha oo laamiga beeko waxaa u soo leexanaysaa dhanka Daynile. meeshaas waa masaajid kale hala soo dhawaado. waa meeshaan sidaas u camiran. laamigana waxaa ka xiga 3 baloog oo keli ah. wuxuu ku jiraa baloog afaraad. booska iibkana waa kana jiingadan iyo ku aadan yahay. wada ahaan marka lahane dhinacan ee wadadiisa naqane gurigan filada iyo ee wadada ka soo bilaabataa. hala soo dhawaado. jihadiisana waa waqooyi ujeed ee koonfur ujeed raali ahaada. qiimihiisana aad u jaban yahay. waxaa lagu rabaa oo keliya 16,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah. waa macal dalaal iyo heshiis. waa meelaha hore ka degaysid. soo dhawaada. waa mahadsantihiin. kanaalkan subscribe noo saara. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate, walaalayaal soo dhawaada. dhulkan beeca waa boos bannaan. waa meesha hadda aad joogno. meeshaan ayuu ka bilaabanayaa oo dhagxanta yararka ee taallo eladii ama calaamadii booska. waa boos dhammaystiran. cabirkiisa waa 25 meel aad u fiican oo deegaan ku yaallo. guryahan jiingada ayuu diris leeyahay.